madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo gobolada ku marayo arrinta farmaajo guri loo dhisaya baraha bulshada iyo goob walba shacabka isugu yimaadaan lama hadal hayo safarka xasan sheekh ee uu ku tagay gobolada ka tirsan Soomaaliya maamulada galmudug iyo koonfur galbeed maadaama uunan suuqa u galin sidii loogu talagalay madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu soo gabagabeeyay jadwalkana uu iska joojiyay socdaalkii uu lahaa ku tag magaalooyin kamid ah maamul goboleedyada kale maadaama laba maamul goboleed tagay qorshe wuxuu ahaa inta laga gaarayo calaamasaarka inuu agta mariyo shanta madaxweyne maamul goboleed ee dalka waxyaabaha uu joojiyay waxaa kamid ah suuqiyo laga qabsaday baraha bulshada waxaa lagu hadalhayaa lacagta farmaajo loo ururinayo goobaha bulshadu isugu yimaadaan ee kalena sida fadhi ku dariyada goobaha maqaayadaha waxaa laga hadalhayaa arrinta guri baa loo dhisayaa maxamed cabdilaahi farmaajo meeshii laga hadalhay lahaa safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee nabadda ee uu doonayay in uu dadka Soomaaliyeed u tuso dadkuna ay la socdaan meel kasta uu tagayo waa looga adkaaday marka su'aasha meesha taalla ayaa ah maxaa dhacay oo keenay in bulshada laga qabsado madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo safaradiisu ay qiimo yeelan waayaan oo waliba ay yihiin safar nabad ah oo ku doonayo inuu talooyin kaga dhageysto shacabka iyo siyaasiyiinta maamul goboleedyada dalka balantu waxay ahayd inuu tago Jowhar balantu waxay ahayd inuu tago Kismaayo balantu waxay ahayd inuu tago Garowe markuu arkay madaxweyne xasan sheekh maxamuud cid hadal haysa aysan jirin baraha bulshada oo dhan laga aamusan yahay shacabka Soomaaliyeed aynan ka warhayn oo qof walba maanta uu ku mashquulsan yahay guriga maxamed farmaajo loo dhisayo waxay noqotay markii uu iska soo gabagabeeyo safarkii uu ku kala tagi lahaa maamul goboleedyada kale marka maxay ku timid way kooban tahay hogaamiyuhu waxa uu leeyahay laba dabeecadood hogaamiye aanan aqoonin isku xirka ama sida loo jiheeyo maskaxda shacabka Soomaaliyeed oo wanaag kasta u sameeyo ay noqonayso hal bacad muqlis iyo hogaamiye aan waxba qaban laakiin yaqaana sida loo jiheeyo maskaxda shacabka maxamed farmaajo wuxuu yaqaanaa sida loo jiheeyo maskaxda shacabka waxaa la shaqeeya dad u xarbisan sida bulshada Soomaaliyeed loo soo jeedin lahaa waa dad takhasus u leh sida bulshada loo bedeli karo daqiiqad walba laakiin ma haysto madaxweyne xasan sheekh maxamuud rag noocaas ah rag saamayn leh oo jihayn kara bulshada Soomaaliyeed xasan sheekh ma haysto rag yaqaana sida loo jiheeyo oo loo soo jeediyo indhaha shacabka loogula jeediyo safarkiisa xasan sheekh maxamuud ma haysto ragga uu xushay ee dhanka saxaafadda waa rag aan la loolami karin kooxda farmaajo waa rag aan haba yaraatee meel la dhigi karin hadal kooxda farmaajo oo weliba xitaa siyaasadda looga adkaa xasan sheekh wuxuu keensaday qolooyinka warbaahinta u qaabilsanna ay yihiin qolo aanan haba yaraatee bulshada soo jiidan karin waana sababta safarkiisii nabadda ee qiimaha lahaa oo u noqday mid ay bulshadu aynan hadal hayn yaa ka badiyey kooxdii farmaajo oo bulshada si fudud u soo jiidiyay marka mid ogaada waxaa jira wax la yidhaahdo soo jiidashada shacabka hogaamiyaha isagoona waxba qaban haddii uu haysto rag jiheeya oo meediyaha ku jira oo saamayn leh hogaamiyahaasi oo waxba qaban ayaa bulshadu mar walbaba ay isaga hadal haynayaan laakiin hogaamiye wax qabad badan laakiin aanan haysan rag aqoon u leh sida bulshada loo soo jeediyo ugu dambayn waxay ku biyashubataa in war walba iyagu ay hayaan uu noqdo mid ka labaad si fiican shacabku u fahamsiinaya madaxweyne kasta wuxuu leeyahay dad u qaabilsan baraha bulshada laakiin xasan sheekh maxamuud nasiib darro wuxuu xushay dad aan saamayn lahayn oon haba yaraatee ka dhex muuqan karin baraha bulshada waxayna kaliftay in safarkiisii nabadda oo loo baahnaa in loo garab istaago si dhammaystiran uu u adeegsaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud rag aan saamayn lahayn oon meel dheerna hadalka gaarsiin karin aqoon durugsanna aan u lahayn sida bulshada loo soo jiito laakiin maxamed farmaajo wuxuu haystaa rag takhasus u leh sida bulshada loo soo jiito mana loogu babac dhigi karo barnaamijkan hadda ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee dhanka arrinta saxaafadda ragga u qaabilay oo macnaha uu geystay qaybta saxaafadda ma aha rag maanta iska dhici kara kooxda farmaajo rag maanta u babac dhigi kara ma aha waa rag aan saamayn ku lahayn dhinaca baraha bulshada bal fiiri safarkii nabadda ee loo baahnaa in loo buubuuriyo si dhammaystiran
oo kor loo qaado oo shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan loo dhamaystiro oo dadkana loo gaarsiiyo sidii loogu talagalay ayaa maanta waxa ka tartan badiyay oo kala wareegay baraha bulshada farmaajo guri loo dhisay rag wata maxaa yaala waxa wanaagsan marka hogaamiyuhu inuu samaysto rag soo jiidasho leh rag yaqaan sida shacabka loo soo jiito rag yaqaan sida madaxweyne fadhiid ah looga dhigo madaxweyne wax qabad maantana madaxweyne wax qabad leh ayaa jooga laakiin nasiib darro raggii uu saxaafadda u xil saartay waa rag aanan meel fog gaarsiin karin wax qabadka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waana rag maanta aan u babacdhigi karin kooxdii farmaajo xitaa laga itaaloonaay arrintan haddii sidaa kusii socoto mar walbana baraha bulshada laga qabsado tusaalaha koowaad oo maanta idin siinaya meel ku qorta habeenka caleemasaarka baraha bulshada laga qabsan doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadal haynta caleemasaarkana wuxuu noqon doonaa mid aan waxba ka jirin maxaa yeelay xafladda caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ragga lagu casumay ee dhanka social mediaha ama dhanka warbaahinta ama dhanka saxaafadda waa rag aan lahayn khibrad ay bulshada kusoo jiitaan waana sababta keeni doonta in habeenka caleemasaarka barnaamij ay la yimaadaan kooxdii farmaajo barnaamijkaasna ay baraha bulshada keenaan si uunan suuq u yeelan caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa nasiib darro aad u weyn in maanta madaxtooyada iyo maamulka cusub ee dalka inuu xusho rag warbaahinta aanan meel fog gaarsiin karin waana nasiib darro weyn in maanta waxqabadkii ugu horeeyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ah in uu la wadaago waxqabadkiisa iyo dowladnimadiisa inta uunan kursiga ku fariisan maamulada dalka bal fiiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii uu arkay inaynan uu arkay in warkiisuba uu yahay mid aanan baraha bulshadaba saamayn ku lahayn markuu ogaaday in indhihii shacabka loo sii jeediyey dhankii madaxweynihii Soomaaliya guri loo dhisaya xasan sheekh maxamuud uu iska joojiyay safarkii nusmaray markuu arkay inuusan muxur lahayn